waxay isku raaceen gabadha yarta ah in dhiigga laga bedelo ruuxa laga bedelo oo qof ka dhashay laga keeno Soomaaliya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan waa idin salaamayaa ummadda islaamka ee channelkayga ku xiran. Maanta waxaa inoo wadaa sida aad nooga barateenba ma wada qosol, ma wada qaraaxo, ma wada su'aalihii aad dadka weydiin jiray. Waxaa inoo wadaa maanta arrin qiiro gelisay shakhsi Soomaaliyeed waliba inan yara oo gabar yara oo caafimaadkeeda aad u liito. intaan sheeko ahaan iyo fikrad ahaan ay idin gudagelin horta isla daawana videoga. Bismillahir Rahmanir Rahiim. أولا waxaan mahadsan Allaah weyn qaadirka ah wax la keeno wax la qaado isaga ayaan mahad ugu celinaa alxamdulillaah rabbil caalamiin. أولا waxay iga xanuunsan gabadha yar oo dhinacayga taagan oo aan dhalay oo iga xanuunsan xanuun dhiig ama haya boosaaso ayaan ka keenay markii ugu horeysay dhakhaatiir badanna waa mariyay oo Soomaaliya iyo Itoobiya iyo Xamar Muqdisho ah. dhakhaatiirtaasi waxa weeye waxay gabadha yar xanuunkeedu wuxuu noqonayaa dhiigga ayaa dhacaya, dhiigga cad baa dhammaanaya, dhiigga cad markuu dhammaado kii kaleeto casaa ayaa afka ka imanaya. 2 isbuuc markii gaadhaba dhiig kushiis bay u baahanaysaa. Itoobiya iyo Herar iyo dhulka haddaan geeyay waxba kama qaban karna yidhaahdeen. Xamar baan geeyey, xamarna sidaas in lahayd waxay yidhaahdeen meesha la yidhaahdo Hindiya unba wax laga qaban karaa. waraaqihii Xamar iyo Itoobiya waa kuwan ilaa waa dadka beelkaani ku jiraan. waraaqihii Itoobiya waa kuwan ay waxba kaga qaban waayeen. waxaan keenay meesha la yiraahdo Hindiya haddaan keenayna waa la baaray gabadha yareed dhiiggii isbuuc baa loogu shubayaa waana ka dhammaanayaa. maruu ka dhammaadona kii guduudnaa afka ka imanaya isla markaa dhiig kushubis bay noqonaysaa. qolada Hindiya hadday baareen waxay u yiraahdeen dhakhaatiirta faraha badan oo faylalkoodan ayaa ka baaray waxay isku raaceen gabadha yarta ah in dhiigga laga bedelo ruuxa laga bedelo oo qof ka dhashay laga keeno Soomaaliya isla markaa Soomaaliya laga keeno halkaan la keeno oo labadooda ruuxa loo kala bedelo oo ruuxa waa laga shubayaa. ruuxii laga shubayana way isku raaceen shanta dhakhtar way isku raaceen gabadha ruuxa laga bedelo way isku raaceen. isla markaana waxaan awood u hayno oo awood u heli karnana maaha innagana waa naga tambadatay muddo sanadana kharash iyo deyn iyo hawl baan ku jirnay. isla markaa anagoo nisayadana dadka dayana waa nahay reer baadiye u badan dadka ehelku baadiye isaga badan yahay baadiyada maanta abaara ayaa waxa ka taagan waa waqtigii. marka gabadha ayuu aad iyo xasuun siiriya dhakhtarkii haddii aanu niri annagii dhuuxii la bedelayay maanta awood uma hayno. dhiig khatarkii wuxuu yiri maya waa in ilaa laga bedelaa gabadha inta sheegaysaan inay gaarayso loo malayn maayo. gabadha u xanuunsan weeye waa gabar tabcaana dhuuxeeduna ma shaqaynayo waa in dhuuxa loo bedelaa. lacagtii ay ku bedelayeen lacag badan bay yiraahdeen gacanta loo kala bedelay labada qof $22,000 bay yiraahdeen iyo kharashkii gabadha lagu keeni lahaa ama qofka wiil ha ahaado ama gabar ha ahaado looga bedeli lahaa ama sariirtii iyo dawadii waxaas waa dheerihiin adigu lacag aad u badan oo 30 ku dhow bay yiraahdeen. annagu awood ma hayo. waxaan ummadda islaamka ah ka codsanayaan gaar ahaan ummadda Soomaalida meel kasta joogto wixii afka Soomaaliga ku hadla inay na soo caawiyaan oo gabadha yar oo xanuunsan oo tabcaanka ah oo aan itaalka u waayeen muddo sanadka aan la wareegayay inay waxay u caawin karaan iga soo caawiyaan. muslimku waxa uu tacaawunu cala albirri wattaqwa. ilaahay baan mahad leh oo xanuunkan keenay nagana qaadi kara balse ummadda islaamka waxaan ka codsanaynaa inay naga caawiyaan gabadha yarta ah oo xanuunsan oo tabcaanka oo dhiigga 2 isbuuc lagu shubayo oo dhakhaatiirtii isku raaceen Itoobiya waxaas waa faylalkii aan Hindiya weeye meel kasta geynay waxay isku raaceen gabadha in wax laga bedelo mooyaane caafimaad kale ma jiro bay yiraahdeen. ilaahay baa caafimaad haya. marka waxaan ka codsanayaa si naxariis iyo ummadda islaamka ah meel kasta joogto gaar ahaan ummadda Soomaalida inay iga soo caawiyaan. lambaradana waa idin soo qori doonaa insha Allah sidii ummadda Soomaalida looga bartay ummadda Soomaalida way is caawisaa. waxaana wax buruuf oo cad weeye waxaan ku doonayo in been wax ugu doonayana maaha waa wax iga tambatay waa waxaan sanad iyo intaasoo bilood aan kharashkooda ku jiray haddeerna aan awood u hayn
gabadhii yareydna la yiri hadda waxa weeye dhimasho iyo geeri bay u dhaxaysaa dhimasho iyo nolol uma dhaxaysee nolol haddii aan laga bedelin oo dhuuxa laga bedelin dhimashay qarka u saaran tahay marka ummadda islaamka saasaan ka codsanayaa wabilaahi tawfiiq insha allah dhammaantiin waa soo wada daawateen saan u malaynayo waa arrin aad iyo aad u baahan inaan isu garab istaagno waxba iima gelin faraca isma naqaano weligan ismaanan arag laakiin damiirkayga iyo garashadayda way isiin weysay inaan ka aamuso waayo gabar yar ubaxa dalka ah oo noo soo baxayso xanuunkeeda ama dhibkeeda sababtoo ah qofka mar haddii lagu dhaho wuxuu u baahan yahay in dhuux lagu shubo laba isbuuc kadibna dhiigga lagu shubo uu ka dhammaanayo ugu dambeyntina afka ay ka keenayso dhiiggeeda caadiga ahaa ee dhiigga tufayso ee matagayso dhiigga waa xanuun aad u qiiro badan oo aan loo adkaysan karin maanta hadduu adigu ku haysto walaalkaa haysto qof kale uu haystona aad dareemi lahayd dhibka iyo xanuunka uu leeyahay aabbahaas hadlaya waa aabba Soomaaliyeed gabadhiisa intuu kusoo dadaali karo uu juhdi kusoo bixin karo uu qarash gelin karo uu geliyay laakiin si cad ayuu wuxuu noo dhahay maanta intii tabarta iga ahayd iga soo dhamaatay ummadeydaan rabaa in la ii gaarsiiyo maasha allah tabaaraka allah horta sidaa ognahay Soomaalida markay xanuun ama dhibaato imaato aad ay isu garab istaagtaa waxaan ku leeyahay haddaadan adiga awoodin waxaa u awoodaa inaad u sheer gareyso gaarsiiso qof kaleeto Soomaaliyeed awooda ka bixin kara markaad wax sadaqaysanaysaa ma aha inaad wax weyn kaliya bixiso wax alla waxa aad bixisaa waa kuu sadaqo videogan dheeraan iyo inuu dheeraado intaas inuu ka bato ugumaana soo talagelin waxaa idin leeyahay aan isgarab istaagno waayo innamal mu'minuuna ikhwa dadka mu'miniinta oo idil waa walaalo waana inay isgarab istaagaan sidoo rasuulkeena faray inta badanna waan sameynaa haddii aad ka damqanayso sideedoo kale aad uga damqanayso waxaan ku maxalleey ka codsanayaa inaad u sheer gareyso aad gaarsiiso walaalka kale Soomaaliyeed haddaadan adiga markaas waxba tari karin sheertaadaba waxay u qaban kartaa qof caawiya oo intaas in ka badanba u sameeya inaad gaarsiisid haddaad gaarsiisidna darajada iyo ajarka aniga aan raadsanayo iyo asaga midka uu raadsanayo iyo kaagaba isku mid ay noqon doonaan Sultan waxaad ku dartaa dalka inaysan joogin ay India joogaan waxaa agteeda ka hadlaya babji waaye mana diyaarsano saas la ajligeed videoga gabadha waxay joogtaa India ma joogaan dalkii meeshay ku dhibaataysan yihiin waxaan inaga codsi ah dhammaanteen babji cod ahaan maxaa ku leedahay wallahi waa xanuun waa dhibaato waa murug aabbo aan gabadhiisa dhibaataysan tahay aan jeeb waxba ku haynin wadda shisheeye joogo video intuu soo duubay soo dhigay aabbo wuu jecel yahay waxa uu haysto inuu gabadhiisa ku daaweysto haddii ay ka xanuunsato laakiin kuwaad adiga aad dhasha markay u xanuunsan yahay haddana waxba u qaban karin kheyrdhan oo keliya ku furan maanta Sultan waxaa usoo diray videogan waxba aan u awoodin laakiin xanuunkooda ka damqatay video intii kasoo duubtay usoo dirtay hada videoga ummadda gaarsii anagana islaamkii meel kastaan u dhigaynaa bidnaa kale waxaan ilaahay kala jeedaa inuu caafimaad uu siiyo waxsiisbada waxaa ku horeeya caafimaadka inkastoo dal dibadda ay ku xayiran yihiin waxaan idinka codsanahay dadka India dadka joogo ama ganacsadayaasha ama dadka waxa ilaahay siiyey inay gabadhaas caawiyaan kulli markeedana meesha kusoo qori doonaa kuwan waa laga fidin kana ku jiraan waraqeyntoodina waa kuwan assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan keenay meesha la yiraahdo India haddaan keenayna waa la baaray gabadhii yareed dhiiggii isbuuc baa loogu shubayaa waana ka dhammaanayaa maruu ka dhammaadana kii gudubnaa afka ka imanaya isla markaa dhiig ku shubis bay noqonaysaa qolada Hindiya hadday baareen waxay u yiraahdeen خاطرتها فراغ بدن وفيلك وضعنا هي كباري وحيسكن راعين كبرنا يرتأ عندي كل جنب الدلوع اللي جنب الدلوع وقف قدر الشيء لقى كانوا الصومالية إسلام مركز الصومالية لقى كانوا على كانوا ولا بدو الدلوع اللي كان بالدلوع والدلوع هو على شوية دلوع اللي شوية ويسكن راعين عشان تختار ويسكن راعين قبل الدلوع اللي جنب الدلوع ويسكن راعين إسلام مركز هو على أول وهاي أول وين كنا معها إننا وأنا قتم بلطي
muddo sanadana kharash iyo dayn iyo hawl baanu ku jirnay isla markaa annaguna sidayadana dadka dayana waa nahay reer baadiye u badan dadka ehelku baadiye isaga badan yahay baadiyana maanta abaara ayaa waxa ka taagan waa waqtigii marka gabadha ayadoo aada iga xusano siiriya dhakhtarkii haddii aanu niri annagii dhuuxii la bedelayay maanta awood uma hayno khatarkii wuxuu yidhi maya waa in ilaa laga bedelaa gabadhan intaa sheegaysaan inay gaaraysa oo loo malayn maayo gabadh aad u xanuunsan weeye waa gabadh tabcaana dhuuxeeduna ma shaqaynayo waa in dhuuxa loo bedelaa lacagtii ay ku bedelayeen lacag badan bay yidhaahdeen gacanta loo kala bedelaya labada qof $22,000 bay yidhaahdeen iyo kharashkii gabadha lagu keeni lahaa ama qofka wiil ha ahaado ama gabar ahaado looga bedeli lahaa ama sariirtii iyo dawadii waxaas waa dheeryihiin adigu lacag aada u badan oo soddon ku dhow bay yidhaahdeen annagu awalna awood uma hayo waxaan ummadda islaamka ah ka codsanayaan gaar ahaan ummadda soomaalida meel kastay joogto wixii afka soomaaliga ku hadla inay na soo caawiyaan oo gabadhaa yar oo xanuunsan oo tabcaanka ah oo aan itaalka u waayaan muddo sanadka aan la wareegayay inay waxay u caawi karaan iga soo caawiyaan muslimku waxuu tacaawunu cala albiri wataqwaa ilaahay baana mahad leh oo xanuunkaan keenay nagana qaadi kara balse ummadda islaamka waxaan ka codsanaynaa inay naga caawiyaan gabadhaa yarta ah oo xanuunsan oo tabcaanka oo dhiiga 2 isbuuc lagu shubayo oo dhakhaatiirtii isku raaceen Itoobiya waxaas waa feerarkii aanu Hindiya weeye meel kasta geynay waxayna isku raaceen gabadha in wax laga bedelo mooyaane caafimaad kale ma jiro bay yiraahdeen ilaahay baa caafimaad haya marka waxaan ka codsanayaa si naxariis iyo ummadda islaamka ah meel kasta joogto gaar ahaan ummadda muslim ummadda Soomaalida inay iga soo caawiyaan lambaradana waa idin soo qori doonaa insha Allah sidii ummadda Soomaalida looga bartay ummadda Soomaalida way iscaawisaa waxaana wax buruuf oo cad weeye waxaan ku doonayo in been wax ugu doonayana maaha waa wax iga tambatay waa waxaan sanad iyo intaasoo bilood aan kharashkooda ku jiray hadeerna aan awood ahayn gabadhii yareydna la yiri hadda waxa weeye dhimasho iyo geeri bay u dhaxaysaa dhimasho iyo nolol uma dhaxaysee nolol haddii aan laga bedelin oo dhuuxa laga bedelin dhimashay qarka u saaran tahay marka ummadda islaamka saasaan ka codsanayaa wabilaahi tawfiiq insha Allah